tani markii dharaar cad lagu dilay magaalada Muqdisho wariyaasha kala ah Mahad Axmed Cilmi iyo Cali Iimaan Sharmaarke oo labaduba ka tirsanaa idaacadda iyo TV-ga Hoon Afrika ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa mugdi ku yimid niyadii saafiga ahayd ee suxufiyiinta Soomaaliyeed kuwaasi oo u taagnaa u doodidda iyo dhibaato la qaybsiga ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan iyagoona in badan wax ka qorayay barakaca iyo dhibaatooyinka ummadan lagu hayo balse geeridii suxufiyiintan waxa ay wariyaal badani bartay waxa uu yahay barakac iyagoona qaxooti dandaraysan ku noqday qaar ka mid ah wadamada caalamka sanadii 2007 ayay ahayd markii ugu horeysay oo aan maqlo ama arko saxafi barakaca waxaana wariyaal badan oo ka cararay magaalada Muqdisho iyagoo amnigoodii u baqanaya isku wareysteen magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland halkaasi oo mar kale ay mashaqo ku qabsatay kadib markii maamulka uu ku amray in 24 saac gudahood ay uga barakacaan magaalada Hargeysa xilliga maamulka uu sida lahaa waxa uu u arkayay saxafiyiintaasi inay amniga maamulkaasi khatar ku yihiin maadaama ay bilaabeen inay wax ka qoraan nolosha magaalada Hargeysa iyo qaabka maamulka uu la tacaamulo shacabkiisa amarka ka soo baxay Somaliland waxa uu dacwareemay isla markaana uu sababay in suxufiyiinta ay laba u kala qaybsamaan kuwa Muqdisho dib ugu soo laabtay oo hididiilo galiyay habsami u socodkii howlaha saxaafadda iyo kuwa qurbaha u sii hayaamay oo Nairobi iyo magaalooyin la mid ah sida Djibouti tagay muddo ayuu xaalka suxufiyiintu wanaagsanaa marka laga soo tago dhibaatooyinka colaadaha ee ugu horeyso oo ay dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay la wadaagaan laakiin muddo gaaban kadib waxaa dhacday qaxii labaad ee suxufiyiinta kaasoo loogu magac daray qaxan qaxaya ka horeeyay waxaana uu kaasi yimid kadib markii la qaarijiyay saxafiyiin badan oo lagu dilay caasimadda Soomaaliya iyo gobolada dalka qaarkood dilalka qorsheysan ee suxufiyiinta jirdilka hanjabaadaha iyo afduubaha kuma koobna magaalada Muqdisho ee xitaa waxa uu saameeyay suxufiyiinta ku nool gobolada koonfurta Soomaaliya Puntland iyo Somaliland wariyaasha halkaasi ku noolaa waxa ay ka mid noqdeen kuwa soo qaxay inkastoo marba marka ka dambaysa qaxa suxufiyiinta oo sii kordhayay haddana waxaa jirta saxafiyiin kale oo iyagu ku dhiiranayay inay shacabkooda warka u tabiyaan oo ay mashaqada dalka ka jirta ay la qaybsadaan sida aad uga jeedaan muuqaalkan iminka idin horyaala madaxweynaha dawladda kumeelgaarka ee Soomaaliya degmada Xamarweyne ayaa socdaalkii shanaad ee socdaalka loogu magac daray isdhexgalka bulshada iyo soo celinta bilicda magaalada Muqdisho Cabdikaamil Yuusuf Maxamuud Somali TV magaalada Muqdisho sanadkan aynu ku guda jirno ee 2012 oo ay Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ka shaqeeyaan saxafiyiintii ugu badnaa oo dhanka kalena la oran karo waa kuwa khibrad ahaan liita oo badi ku soo biiray saxaafadda barakacii saxafiyiinta kadib ayaa waxa uu noqday sanadkii lagu dilay Muqdisho saxafiyiintii ugu badnaa waxaana la dilay ilaa iyo in ka badan 15 saxafi sidoo kale dilalka sanadkani dhacay waxa uu haddana sababay in saxafiyiintii khibradda yaraa ee Muqdisho ka shaqeynayay inay ka cararaan shaqooyinkoodii waxaana kuwa badan oo ka mid ah ay Khartoum soo mareen iyaga oo tahriib doonaa marar badan waxa ii suurooday inaan socdaallo ku tago goobo badan ay u qaxeen saxafiyiinta Soomaaliyeed xilli aan ku guda jiray socdaalka aan ugu magac daray saamaynta suxufiyiinta soo barakacday iyo waxqabad la'aanta ururada saxaafadda socdaalkaasi oo ugu wehelinaya saaxiibkayga saxaafadda ahna rugcada Cabdikaamil Yuusuf Maxamuud bilowgii sanadii 2007 ayay ahayd markii aan tagay dalka Djibouti waxa ayna ahayd sanadii ugu horeysay oo aan kula kulmo magaalada Djibouti saxafiyiin Soomaaliyeed oo barakaca kuwaasi oo u badnaa saxafiyiintii ka soo hayantay magaalada Muqdisho oo markaasi ay uub ka ahayd mashaqada lagu ugaarsanayo wariyaasha socdaalkaygii labaad waxaan ku tagay magaalada Nairobi ee dalka Kenya sanadii 2009 xilligaasi waxaan wax yar ka dambeeyay markii qaxayn saxafiyiintii ugu badnaa ee qaxii loogu magac daray qaxan qaxa ka horeeyay saxafiyiintii ugu badnaa ayaa tagay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya noloshoodana waxba kama ay duwaneen midda ay ku nool yihiin Soomaalida leen sugayaasha ah mana jirto cid ay kaalmo ka heleen dhanka noloshooda marka laga soo tago kuwa yar oo bilaabay inay mihnadoodii sii wataan oo shaqooyinkii saxaafadda halkoodii ka sii ambaqaadaan
hay-adda UNHCR oo arrimaha qaxootiga u qaabilsan quruumaha midoobay ayaa foomam ka buuxisay oo ay ku caddaynayso inay dhibanayaal yihiin oo caalamka u weydiisay inay magangelyo siiyaan sidaasna ay ku tageen qaar ka mid a saxafiyiinta dalal ka tirsan qaaradaha Yurub iyo Ameerika. 4 Febraayo 2010 waxay ahayd markii aan sahankayga ku tagay caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa, halkaasi oo sidoo kale ay ku noolaayeen saxafiyiin fara badan. Addis waxa ay wax badan ka duwaneed magaalooyinkii aan horay u soo maray ee qaar ka mid ah dalalka dariska, maadaama saxafiyiintu aysan waxba yaraatee xorriyad saxaafadeed haysan. qaar ka mid ah saxafiyiinta joogta Addis Ababa oo aan ka codsaday inay waraysi siiyaan ayaa cabsi awgeed iga diiday, iyagoona geesta kale iigu baaqay inaan iska yareeyo dhaqdhaqaaqa saxaafadeed oo ay igu sheegeen inuu khatar ii keeni karo gudaha Ethiopia. wadamada ay suxufiyiinta joogaan isla markaana ay ku badan yihiin sidoo kale waxaa ka mid ah dalka Koonfur Afrika, halkaasi ayaa iyana waxaa ka dhisan ururo saxaafadeed oo tiro badan, kuwaasi oo hawshoodu ay tahay oo keliya qowda maqashi waxna u qaban, taas oo ka mid ah waxyaabaha ay Soomaalidu ku hormari weeday. sidoo kale waxaan tagay dalal ka tirsan Afrika oo ay joogaan rag saxafiyiin ah kuwaasi oo ka tanaasulay shaqadoodii iyo kuwa si weyn looga yaqaan magaalada Muqdisho isla markaana sii waday howlahooda saxaafadeed, balse inta badan dalalka dariska ah saxafiyiintii tagtay waxay u badnaayeen kuwa isu dhiibay qaramada midoobay isla markaana leen sugayaala. ugu dambeyn 6 Abriil sanadii 2012 xilli saq dhexe ah ayaan ka soo degay garoonka caalamiga ee magaalada Khartoum ee caasimadda dalkani Suudaan, laakiin safarkaygan aan ku imid Khartoum waa uu ka duwanaa kuwii aan ku tagay dalalka kale ee Afrika, maadaama ujeedka Khartoum aan u imi uu ahaa in aan ka dhamaystirto howlahaygii waxbarasho ee muddada hakadka ku jiray. markii aan imid magaalada Khartoum ee caasimadda Suudaan waxaan helay akhbaar ah inay ku nool yihiin saxafiyiin dhanka kale arday ah oo waxbarta, kuwaasi oo leh ururo kala duwan oo iskhilaafsan. waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee aan ku arkay magaalada Khartoum ayaa waxa ahaa kadib markii aan arkay saxafiyiin aan isku bah ahayn oo kala sheeganaya 2 urur isla markaana lidis u ah, walow markii dambe dadaalo badan ay sameeyeen qaar ka mid ah rugcadayaasha saxaafadeed ee ku sugan magaalada Khartoum ay ku guuleysteen inay isu keenaan. laakiin xaalka ayaa isbedelay, waxaana dhacay wanaag aan filayay oo rag wanaag jecel ay sameeyeen. isbedelkaasi oo ahaa in saxafiyiintii ugu cadcaddaa ee Khartoum joogay ay shir yeesheen, ugu dambeyn ay ku midoobeen, waxaana si cadaalad ah ra'iis ugu doorteen Cabbaas Maxamuud Nuur oo ugu dambeyntii soo dhisay tashkiilo aad u wanaagsan oo saxafiyiintii kale ay ku qanceen. sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxaa iswaraysi la'aan ku dhacday qaar ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed, iyagoona saxafiyiinta badankooda ay u barakaceen dalal ka tirsan qaaradaha Yurub iyo Ameerika, halka qaar kalena ay weli qaxooti dandaraysan ku yihiin qaar ka mid ah dalalka dariska ah. balse qaar ka mid ah saxafiyiinta rugcadayaasha ah ayaa waxaa laga reebay oraah iyo halkudhigyo caalami noqday, iyadoona mid ka mid ah saxafiyiintii ugu caansanaa saxaafadda laga hayo inuu yidhi la kala haadi hadma la isku soo noqon. Cabdifataax Maxamuud Axmed Abaal,